السلام عليكم. waxay ahayd boqortooyadii ugu dhulka ballaamnay taariikhda, laga soo bilaabo Kuuriya ilaa Ukraine, Siberia ilaa koonfurta Shiinaha. qarnigii 12aad ee miilaadiga intaysan bilaaban imbaradoriyadan Mongoolka ah oo dunida oo dhan dagaalka ku qabsan doonta. bariga Aasiya waxay hoy u ahayd qabaa'ilka Mongoolka iyo Turkida xoolo dhaqatada ah oo ay hogaamin jireen boqorro ay u magac dareen Khans. waxay dhaqan jireen idaha, lo'da, geela. waxay ku noolaayeen teendooyin, waxayna guuri jireen inta u dhaxaysa xilliyada xagaaga iyo jiilaalka. haweenka waxay lahaayeen awood weyn sida maareynta guuritaanka, xoolaha iyo ganacsiyada. dhanka kale raggu waxay shaqadoodu ahayd dagaalka. reer guuraaga Mongoolka mararka qaar iyaga dhexdooda ayaa isdagaali jiray, laakiin taa waxay dhammaatay markii uu xukunka qabtay Temujin oo ka dhashay qoys dabaqada sare ah. inkastoo uu aabihiis dhintay isagoo da'yar kuna soo koray faqiirnimo, haddana si dhaqso leh ayuu ula wareegay xilka isagoo xulufo istiraatiiji ah la yeeshay hogaamiyayaasha kale si ka duwan khaankii hore ama hogaamiyayaashii hore. Temujin wuxuu askartii u dallacsiiyey sidii ay u kala mudnaayeen, wuxuu si siman ugu qaybiyey khaniimooyinkii dagaalka. sidoo kale waxa uu ku duulay reer guuraaga, wuxuuna ciidamadiisa ku soo daray dhammaan dagaalyahanadooda si aysan uga soo horjeesan. isbedeladan ayaa ka dhigay inuu noqdo mid aan la joojin karin. sanadii 1206 wuxuu mideeyey dhammaan qabaa'ilada reer guuraaga ahaa ee ku noolaa bariga Aasiya, wuxuuna sidaas ku noqday Genghis Khan. Mongooliyaanka waxay ahaayeen kuwo aaminsan arwaaxda, iyagoo aaminsanaa in ruuxda iyo awoowayaashood ay ku hareeraysan yihiin. sidoo kale waxay aaminsanaayeen ilaah ay ugu magac dareen Tengeri. Genghis Khan wuxuu aaminsanaa in ilaahooda Tengeri uu ka dalbaday in isaga iyo qabaa'ilada Mongoolka ah oo midaysan ay caalamka oo dhan weeraraan ama ku duulaan. qof walba oo ka soo horjeestana waxa uu ka soo horjeedaa ilaahooda Tengeri, waxaana qasab ah inuu dhinto. intii uu xukunka hayay Genghis Khan wuxuu boqortooyadiisu gaartay koonfurta Shiinaha iyo bariga dhulalka Islaamka. waxa uu dhintay sanadii 1227 waxaana xukunka la wareegay caruurtiisa. sanadii 1230 weylashii Genghis Khan waxay duulaan ku qaadeen Turkida iyo boqortooyadii Russia, kadibna waxay burburiyeen 2 boqortooyo oo Yurub ah. sanadii 1241 1250kiina waxay qabsadeen magaalooyin badan oo caalamka Islaamka ah ilaa ay gaareen Baghdad, halka dhinaca barina ay gaareen koonfurta Shiinaha sanadii 1279. nolosha boqortooyada Mongoolka kaliya ma ahayn dagaal, duulaan iyo burburin, laakiin markan waxay isticmaaleen siyaasad ah mar kasta oo ay dhul qabsadaan waxay u dhaafi jireen inay ismaamulaan iyaga siyaasad ahaan, waxayna u dhiibi jireen xukunka dhulkaas qof ka soo jeeda, waxayna ammaan siiyeen diin walba oo raacda xukunkooda. inkastoo ay xiri jireen culimada, injineerada, haddana waxay u joogeen meel sare, waxayna si qasab ah ugu diri jireen bariga Aasiya si ay uga faa'iideystaan cilmigooda. imbaradoriyadan waxay ku tiirsanayd dahabka laga keeno Tibet, xariirta laga keeno Shiinaha iyo dunta oo Baghdad laga keenayay, taa oo ay ku samaysan jireen dareyska ciidanka iyo teendooyinka ay deganaayeen. imbaradoriyadan waxay markii ugu horeysay fududeysay isku xirnaanshaha labada qaarad ee Yurub iyo Aasiya, siyaasad ahaan iyo ganacsiba, iyada oo la isticmaalayo wadada loo yaqaano Silk Road. laakiin tan ma noqon mid sii raagta, maadaama kursiga dhaxalkiisa kaliya uusan lahayn wiilka ugu weyn, laakiin u dhaxaysay walaalaha, adeerada iyo ilma adeerada. 1260 wiilashii Genghis Khan waxaa ka dhex qarxay dagaal la sokeeyay uuna sababay qof ka qaadan lahaa dhaxalka kursiga, waxayna noqotay in boqortooyadii loo kala qaybsaday ilaa 4 boqortooyo. China waxaa xukumayay Kublai Khan iyo caruurtiisa. Iran waxaa xukumayay Ikhu Khanet. dhaxbartamaha Aasiya waxaa xukumayay Chagatai Khanet. Indiyana waxaa xukumayay Timur. furashadii Mongoolka ama Tataarka waa istaagtay. Masar ayaa noqotay meeshii ugu horeysay ee lagu jabiyey ciidankii Tataarka. dagaal loogu magac daray Ayn Jalut ayaa ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee joojiyey faafitaankii Tataarka dunida ay ku qabsanayeen. Ayn Jalut waxaa loogu bixiyey dagaalka meesha uu ka dhacaya waxaa loo yaqaanaa Ayn Jalut. taariikhyahanadu ma sheegin dhulkii Tataarku qabsaday sidii dib looga wareegay, laakiin waxaa dhacday markan arrin la yaab leh. culumadii Islaamka ayaa furtay qalbiyada ciidankii Tataarka, waxayna ku soo dareen Islaamka. ugu dambeyn, Mongoolka ama Tataarku dunidu waxay ku reebeen magac iyo dhacdooyin foolxun oo aan la hilmaami karin, iyo boqortooyo si dhaqsi leh ku qabsatay dhulkii la yaqaanay markaa.
markan dunida waxaa laga yaqaanay 3 qaarad oo kaliya waa qaaradda Yurub, Afrika iyo Aasiya